marka laga taga gayiga ay Soomaalidu degto wadamada cadaanka caruurtoodu marka ay seexanayaan waalidku ilmaha yar waxa uu sheegaa wax walba inay nabad yihiin deedna waa la dhunkada ayr bay ka baxaan soo ilmaha yar seexdo hadaba bal inaga Soomaalida ilmaha yar waxa ku seexinay leeg ما سيحنيسيد والله يلا ما أنت كبر يان سيحك ولا هاي بتدنا كذا شيء كريم كسر ما نقلي واتم والله قال عن بتيجي قال عني كان مسيحني ما سيحنا أديك أبى فيلم هور ريقة الأخرية لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما ده عدانك حول بحلية كتراني غير كي أنا دري رأسان شيء فينكو أمان هلاي وسواس بان قاعد يعمر دق لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أنت الإسلام هاي ما نيجي أدعية إيو قرآن اللي اسمه مريم يعني نيجي لا إله إلا الله محمد رسول الله إله عندنا سحسم هاي سنين نسألك نوما هنيئا يا رب العالمين هلو ilmaha yar halku nasan lahaa maskaxdiisa aad baqasho ku abuurtay markuu soo kaco muudkiisu caadi ma noqonaya ama ilmaha yar maskaxdiisu taama noqonaysa yaani dhaqamada ugu xunxun ama waxyaabaha qaladka ee caruurteena ay kula kacnaa waxa kamid ah tusaalahan ilmaha yar haduu xanuunsado oo kale haduu xataa dhol cadaya ama uu qoslo waxa lagu radaa uu qoslo ilmaha yar ma xanuunsanayo dadkan Soomaalida ilaa aad ku hor go'do ama aad ku hor sakaraado uma qaadanayaan ilaa aad xanuunsanaysiin kale يعني ilmaha yar naqani waa xayawaan oo kale markay yar dhasho waa sida xayawaan oo kale iska yahay wuxuu hayuu ku qabadsiinaya subhanallah ay waliba qoslaya galgalanaya way waxaan wax ku yeelayay in kale uma haysto ilmaha yar waxa lagu tarbiyadeeyo iyo waxa uu barto goordama baranaya kani waa waalidka kan waa walaalka kan waa sida naxariista la baraya waxbarashada la baraya markaas ilmaha yar wax garanaya hadii waxbarashadii tarbiyadii sideetanaadkii iyo wixii ka horeeyay waalidka ku tarbiyeynaya caruurtaada ku tarbiyadaysa 2021 oo tiraada reer caruur baan leey budna waan la dhex taaganahay ilmi yar agtaada inta soo fadhiisto qofkaaga budka haysta wax ma ku sheegay dhibtiisa ma ku sheeganaya kuma sheeganayo ilmi yar la saaxiibi lahayd eed wax u sheegi lahayd eed niyadiisa ilaalin lahayd markii ilmi yar niyadiisa dila xataa caruurteena yar markay inagu akufaan ama qof inaga mid kufo inta reerka joogtaa way ku qosashaa sidii yahuudi ku dhex kufay ilmi yar maskaxdiisu caadi ma noqonayso taa ma noqonayso ilmi yar maskaxdu ka curiyaamay ayaa ilmi yar ay saaha ee dhibtaas oo dhan inuu la soo maray ee waxaas oo dhan inuu ku sameeyay aynu doonaa hadhow inuu anfaco ama wax inoo qabto ama wax ikhtiraaco umada la tartamo isagiiba khaatiyaan taagan ilmaha yar nid maadi barto oo waxaad lacagaysa aad maadi kaga kharash gareysto waxa uga qiimo badan adigoo diintiisa bara soo adiga waajibkaaga gartay waxaad ku leedahay wax xaq ku leedahay waxa Ilaahay xaq ugu leeyahay waxbarashada maadiga ina qiimo ma laha hadii aanu qofku aanu diinta ka garaneyn ama maadi bila diini waxbarasho ma aha sababtoo ah meel dhow baan ka tusinaya bal ilmahaaga yaraa oo 30 sanadood ku tabcaysay oo aad ku ag xanuustaan shahaadada ku qaban karin ka war ama hadaad dhimataan laba ragcadood ku soo tukanay kuna soo ducaynay waxbarashada maadiga kaliya qofku way qurxisa oo suulin buu yar xidhaa kaba yar qurux badan laabtoon buu qaataa wax kale soo kordhisa ma laha waayo qof dhan oo PhD sita oo shahaadada PhD sita ayaa laba caruur dhalaan tarbiyin karay maxay u tartay ama nin waxaad arkaysaa shahaadada master sita oo labadiisi waalido magaalada ku nool aan 6 bilood hal waran ama iska warama oran yani waxbarashada maadiga qofku hadaanu diinta ka dhisnayn waxba uma tarto ilmaha yar waa sababtan mar walba uu raado waxa uga qurux badan inta maadiga laga ilahay intuu yar yahay in diintiisa marka hore la baro marka dambe maadiga wuxuu baran karaya barto yani ilmaha yaraaba waxaad basbaati saaraysa aroortii maalin loo dhaw waxaad ugu daalaysa waxbarashada maadiga ajaanib baad waliba u geynaysaa wax u dhigaysa hadaad istiraada ilmaha yar raaco iskuulkii tagna markaad ajaanibtii u tagto adigaana fahmino u baahan turjubaaniye ninku macnaheeyo waxa ninkan uu leeyahay hadaba adiga marka turjubaan uga baahata macalinka ilmaha yar u geysay muxuu barayaa ilmaha yar wadamada caalamka 80% waxa awood la saaraa jiilka soo kacaya tarbiyadooda iyo sidii loo wanaajin lahaa say adduunka wax la qaybsan lahaayeen say wax u sameyn lahaayeen way berita ka maalinku ku bedelayaa waa iyaga dadkeenu inta ugu faraha badan leh waxay ka ooyaan oo maqaaxiyo meel walba kaga sheekeen xaaladda imkayna haystay dadka imkayna haysta mar walba laakiin anigu waxaan ka sii ooyaya dadka berita hore in qabsan doona waxay yihiin kuwaas aan ka xun oo mar walba waxa laga aayahay mustaqbalka soo socda waalid kasta oo fiidiyowgan daawanaya waxaan kula talinayaa ilmaha yar inuu baro diintiisa inuu tarbiyeeyo oo ugu tarbiyeeyo sida ugu saxsan oo ilmaha yar la saaxiibo oo uu fahmo oo in caruurta niyada loo dhiso oo marka la seexinayo si qurux badan oo niyadoodu taam tahay oo iyago way qofku markuu seexanayo waxa lagu talagalay in niyadu nasato naftiisu nasato in baqasho iyo cabsi lagu seexiyo looma talagalin si ilaahay naga inoogu naxariisto
ubad dambe oo aakhira markaynu wada dhimano qof walba oo dhimanaya inuu ugu soo duceeyana inuu helo dalkeena iyo dadkii dambeenu ka tagaynayna u aaya aynu uga tagno way record kuma inaga agtiya hambalyoonka marka qof walba dhasho ku dadkiisa diintiisa dalkiisa baa anfacay noqdo tarbiyadiisa inuu ilaawana qodobka ugu dambeeyay ka tagaya wuxuu yahay wassalaamu calaykum عقبات الغريب ليس ولا حاضرين حجي ليس لا نعيب قد يحدد عقبات الغريب